الله الرحمن الرحيم ودم إسماعيل موسى يوسف تلياس الليج بوليس كدركين لي إن شاء الله أباره كودي تاريخنا هي تدود بيش السنة لو كني سياري تون أيام وحلو أفضبتي تجمد دركين لي واحد سدحات مواد صوماليات إن أفضبتين لبنان ودروا الكمية عيسى اللي مع محي الدين يوسف وهذا عن قعنته كهينه يا أسكري حوق الدلك كترسن مهد آدن عبد الله أصنع قعنته كهينه يسدح كمية وفقتي مركو قدومية إلى سوى حريري وإيش شاقي إن من أفضبتين مواد صوماليات كلنا بحين دقمة بنان كده قوففك أيام ماشي قوبتي تغني سدح كمية ماشي بسنت وافقدين موادين كينا يلبا كمية الدراول كي ميد كلا وماشي هو سوق بني قعنتان كوهنا shalayto waxaa dhacday in shirkadda la yiraahdo Somalia Optical Network oo gobolka fasax ka haysato warqad lagu fasaxayo inay dhigaan fiilada fiber optic la yiraahdo qayb kamid ah degmada Dharkeeley ayaa waxaa dhacday inuu injineerkii shaqada wada nala soo xiriiro isla markaana uu noo sheego in shaqaalihii qayb kamid ah gaarin waxa lagu afduubtay isla markaasna la watay intana la soo wacay lagu yiri waa in lacag madax furasho bixisaa hadaa u baahan tahay shaqaalahada isla markii anagu waxa la soo xiriirnay taliya ciidanka booliska degmada Dharkeeley waxaanan howlgal u aadnay meeshii anagoo taliya ciidanka iyo maamulka degmada wada socdaan meeshii markaan tagnana runtii inkastoo aanan meesha aqoonin haddana meel magaalada ka baxsan ay ahayd raadkii iyo tilmaantii aan isticmaalnay ilaahay wuxuu noo fududeeyay inaan goobtii lagu haystay qofka dhibanaha la afduubtay aan tagno ayadoo nimanku meesha ay isaga qayilayaan ayna ka qasnayn markii ay ciidanka booliska iyo maamulka degmada ay arkeenna waa carareen nimankii meeshiina waxaan ku soo qabanay gaari nooha oo ahaa noohadii lagu afduubtay dhibanaha darawalkeedii iyo hal askari oo kamid ah ciidankii meesha joogay oo dadka dhibaateynay runtii shabakadan waxay ahayd shabakad isku xiran oo si isku mid ah uga howlgasho degmada waxayna sameyn jireen cid walba guri dhisanayso inta u yimaadeen injineerka guriga dhisa afduuban jireen isla markaasna waxay weydiin jireen madax furasho runtii shabakadaasna waa naqaanaa shakhsiyaadka ay ka kooban tahay macluumaadkooda dhameystiran gacanta noogu jira waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan inta hadda aan soo qabanay ma ahayn inta dhiman aan ka daba tagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala waxaan ugu digaynaa dadka caadaystay inay shacabka masaakiinta ah ay dhimaan oo maalin walba ay afduubtaan oo intay wadaan gaari ku qaadaan meel la tagaan ay lacag afduub weydiiyaan inaan laga yeelin mana aha wax aan aqbali doono ummadan mas'uuliyadda naga saaran Ilaahayna wuu nagu la xisaabtamayaa waxaana naga go'an inaanan waxaas iyo wax lamid ah aanan aqbalin meel walba ay joogaan iyo si walba yihiin waa ka daba tagaynaa waana ka hortagaynaa waana raadinaynaa waxaan kale toon shacabka degmada Dharkeeley aan kula dardaarmayaa dadka dhibaatada ku haya inaysan ka cabsanin laamaha amniga ay la soo xiriiraan taliyaha saldhigga u yimaadaan maamulka degmada u yimaadaan cid walba oo dhibaato ku hayso ay la socodsiiyaan annagana waxaan ka ballan qaadaynaa oo ayna ahayd mas'uuliyaddeenu cid walba oo shacabka dhibaato ku hayso inaanan ka yeelin inay shacabka dhibaateeyaan waqtina aanan u siinin ay ku dhibaateeyaan shacabkana waxaan ka ballan qaadaynaa inaan u heelinayno sidaas daraadeed waxaan ka codsanaynaa dadka ayaga ay yaqaanaan oo ummadda dhibaatada ku hayo inay la soo socodsiiyaan laamaha amniga oo ugu horeeya ciidanka booliska iyo maamulka degmada aadaan u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa la yidhaha aniga mahad isaaq cabdulle jamcaale
waxaan kasoo shaqo tegay degmada Dayniile waxaan imaday meelaan ka wada shaqeeynay niman oo mooryaanaha noo imaadeen 6 nin ay ahaayeen 3 nin qoryo wataan 3 nin waxay ahaayeen mid baawarka wada iyo 2 kale 3 soo degata shaqada joojiyay dhan waa joojiyay waa la ilaa fagaraca baawarka noo hadal igu rido waa la afduubo kadib badda joogtaa leedah lacag madax furasho keen kadib qaybta shirkaddan wacay oo maamulka shirkadda maamulka degmada ay sii wacaan saasaa la igu soo fakay